الرحمن الرحيم waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda muslimiinta ah meel kasta oo ay daafaca caalamka ka joogaan waxaan leeyahay Ramadaan Kariim inta kadib waxaan doonayaa inaan bal ka hadlo bal xaaladda uu marayo wadanku iyo waliba dadkii danyarta ah maatida ah caruurta ah haweenka iyo odayaasha lahaa ee lagu xasuuqay aaga gaashaan dabcan waxa ayaan daraa in xukuumadda Itoobiya iyo dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo iskarabsanaya ay xasuuqeen dad shacab ah oo waxba galabsan taasoo ay jirto in shacabka xukuumadda Somaliland shacabkeeda iyo waliba salaadiintuna ay ku tilmaamaan in laga khaldanaa dadkaasi ama dawladdaasi dabcan waxa ayaan daraa waxa in badan aad soo maqli jirteen dawladda Somaliland ama shacabkeeda oo la Itoobiya waa walaalaheen qaar la Itoobiya waa saaxiibadeen Itoobiya xaqiiqdii maaha saaxiibadeen maaha walaaladeen ee waa cadawga koobaad ee ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ku sugan yahay Itoobiya waxay doonaysaa sidii Soomaali meel kasta oo ay joogaan ay u baabi'i lahaayeen laakiin Soomaali ma oga maxay ka tahay Soomaali ma oga runtii waa ayaan daro waa Itoobiya waa in la iska celiyaa waa in Itoobiya loo kaca la iska celiyaa waa in dhalinyarada reer Somaliland ay dhamaantood u gurmadaan dadkii halka lagu xasuuqay jawaab 24 saac gudahoodna waanu ka bixin doonaa hadii anigoo ku hadlaya afka dhalinyarada Somaliland afka dhalinyarada gobolka Togdheer iyo afka dhalinyarada ummadda Soomaaliyeed